بسم الله الحمد لله دمان شعبنا هرير مركا خاصة هوين كوينا هرير مركا أو سيد قروح بدن أو دقيستي مامول كيسي أو هدنا يسوع صبحان بنان كان إني نظيفيان مقالة ذو ذات يا دوم هالسنتين دمانتينا رنتي فرحة يا نوتة هاي وحين قرأ إني هو ينكرر مركا ديار ويهين إني محلي رضا يكونوا على هذا قريه هذا نظيف ay ku noolaadaan maxaa la yiraahdaa magaaladooda qurux badan ay ku noolaadaan iyaga iyo aruurtooda ma sha Allah anagna waa ku faraxsanahay maadaama hadii aan nahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ikan degmada marka run ahaantii maamulkana dhiirigelinay u tahay intaan hooyo oo banaanka ay u soo istaagto inay nadiifiso magaaladeeda anagna aad ay noo dhiirigelinaysaa saacabtoonka dhaafo run ahaantii waxaan na dareensiisaan inaad diyaar u tihiin inay marka ay nadiif noqoto ganacsigeeda sidiisii uu noqdo sidii hore ay ahaan jirtay inaad goob tihiin oo aad u baahan tihiin magaaladiini iyo quruxda badan insha Allah runaantii waa idinku ogaan gobonimada laakiin waxaan islahaynay kala orodka kadib waxaan islahaynay dadkii hoogo way baabeena islahayn laakiin waa sidii hore aad tihiin wali ma sha Allah waa ku faraxsanahay anagana waxaan rabaa inaad idinka codsado codsi way amar ma ahan inaad ilaalisaan magaaladan quruxda badan nadaafadeeda meeshaan waxay ahayd meel 20 sano qashan lagu shubaayay waxaan rabaa in madam qashan lagu soo shubin in qashinka waa wasaq caafimaadkana uma wanaagsano waa cudur marka waxaan rabaa inaad iska fogeysaan waxa u dar aruurtiina iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha shubanbiyoodka keena meelahan ay ka dhalataa waa cudurku waxa ka imaada qashanka oo la aruuriyo oo hadhow cudur ka imaada wadankan waa u jeedaan taxsi iyo wax badan waxa soo dhan qashanka ka imaadaan hadii qashanka iska fogeyso iska nadiifisid cudurna ma arkaysid wax jeermis ku keenana ma arkaysid marka waxaan rabaa inaad u taagnaataan har iyo habeen nadaafada magaaladan amniga magaaladan quruxda magaaladan iyo amniga magaaladan iyo sharafta magaaladan iyo ilmihiin iyo idinka inaad ku wada noolaataan meel amni ah oo qurux badan oo qashan aan oolin oo nadiif ah insha Allah waana mahadsantihiin